السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي قالي كسو دواada channelkayga Munaas Cooking meel walba adduunka joogtaan inay ugu caafimaad qabtaan rajayna fadlan hadii ay tahay markuu garisa channelkayga soo booqanayso waxa ka codsanaa inaad subscribe noo saarto gambaleelkana furto si muuqaal walba soo geliyo oo ku soo dhaco ama ba uu noqdo daawadaha ugu horeeya waan ku mahadsantiin sida wanaagsan mar walba ila socotaan commentidiina quruxda badan leh iyo dhiirigelinta isugu jira jazaakumullahu khayran jisadiina janna Allah ka dhigo وانا ما تسنتين ولا لا قال او ما تسنتين انا اذن انا مرنا بكما دالي دوني هدي اجلك عصبتي هورو قال ادي ادا اوغ هلي دونتا cuntoyin qisooyin wax walba ku cajib geliyo waa ka heli doontaa hadii aad jeceshaan qof lifestyle kiisino qurxiyo rabane channelkeena munaysato insha Allah nagala soco walaalay qaaliga sawir inoo go'day ahayd gabadhii markii ay go'aansatay inay wiilka ay guursato kadib markii ay yani u heli weyso waqti inay ku noolaato nolosha markaas ayada ay u baahan tahay ee hooyadeedan u baahan tahay baahida hooyadeeda markaas ay dareemeysana aysan dabooli karin darteeda waxay u go'aansatay ahayd inay wiilkan ay guursato ee isku dhiibto hooyadana ay ka qariso waxaa dhacday wiilkii gabadhii inay isku guursadaan wadanka Talyaaniga isku guursadeen markay isku guursadeen oo muddo adiga 3 bilood camal ay isqabaan gabadhii uura ku soo baxay uurka markuu ku soo baxay kadibna way soo raaceen way soo baxeen waxay imaadeen wadanka markaas ay idin sheegay ee dadka dalbanay oo familka ah inay wax siin doonaan iyo dadka caruurta heesto iyo muxuu ahaay hooyooyinka markaas uurka loo kaleento inay wax siin doonaan oo fiirin doonaan maadaama ay dad ilmo heestaan ama ay yihiin dad muxuu ahaay uur leh aan xamili karin markaas duruufta ka jirto Talyaaniga saas darteeda loogu naxariisanayo gabadhii markii ay ogaatay inay uur leedahay ayadii ninkeeda way soo raaceen waxay imaadeen wadanka markaas ay idin sheegay imaadeen markay imaadeen kadib isla markii way isdhiibeen ahayd farihii wixii laga qaatay laakiin gabadha way xanuunsaneed oo uurku ku xanuunstay isla markii dhakhtar la geliyay dhakhtarkii markii la geliyay markii xoogaa ay soo roonaad faleeboyni waxaas la soo durduray yani isla markii hore lagama keenin kaam lagama keenin guriga hore laga siiyay nasiibkeeda aad iyo aad u fiicnaa waxay dhahday markii guriga nala siiyay caadiya u degnay sharciga noo soo dhacay tir isla markii aniga uurkaba leh sharci noo soo dhacay tir aniga ninkeyga markuu saas sharci ku soo dhacay maadaama asagana ay Soomaaliya ay ka soo jireen xaas iyo caruur wuxuuna rabay inuu keeno xaaskiisa iyo caruurtiisa asagana saas darteeda inuu markaas lacag uu shaqeeyo si markaas ilmihiisana biil ugu sii diro wixii markaas uu ku keeni lahaayna inuu markaas uu sii diyaarsado sidee noqotaba ha ahaatee ninkii waxay tiri iskoolka markuu galay tiri luqadii baranayay luqadana gelinoo baranayay gelina wuxuu shaqeyn jiray tiri shaqo wuxuu shaqeyn jiray oo suuq madow ah oo dawladda aan ogeyn oo lacag ka qaadanay oo dhawal ah maadaama ay suuq madow ay tahay oo wax canshuur waxna aan laga qaadeenin lacagtaas waxay tiri waa uga madax banaaneed tiri lacagta oo markaas anaga nala siinaay ee ceerta ah waxay tiri waa dhalay dhahday ilaahu ay kala keen waxaan dhalay tiri laba mataana aha dhalay tiri laba ciyaalo mataana ilaahay siiyay tiri labadii mataana wiili gabar ahaayeen tiri ilaahay siiyay tiri way ii joogaan tiri alxamdulillah markaas saas u dhalay tiri anigana ma sii fadhiisanay tiri marka umash saas uga baxay dhahday waxa u raadiyay tiri ciyaalkii kiitada ama xadaanada ama meesha kiitada ilmaha la geeyo ma aqaan kulay magac kale inta ma aqaan kiitada meesha ilmaha la geeyo 6 sano wixii ka yaraa la geeyaa meesha isla markii waxay tiri waa ka register gareeyay tiri waxaan xoog saaray tiri anigana inaan luqada bartay dhahday luqadii aan baranay tiri ilmaha laakiis inta uurkooda lahaayay tiri oo ay imaan wadanka waxa leeyay lacaga leeyay tiri soo dhaweeyna la siiyay marka caruurta dhalay tiri ilmaha lacaga leegu siiyay tiri oo hooyanimo ala cunuga leeyay tiri lacagta bisha qaadanayna ee ka banaantay tiri oo ceerta tan ciyaalka leegu siinaayo iyo tan aniga la siinaayo ee ka banaanka tiri yani way ka madax banaan tahay wixii lacag ahaayeen oo dhan waxay tiri hooyaday u diray tiri ayuu taagalay dhahday markii aan soo helay tiri iskoolka markaa soo helay ilmiina iska geeyay tiri kiitada waxa sameyn jiray tiri meel oo 3 saacadood ada saacada yar oo laga soo shaqeynaa ayadana suuq madow waa ka soo shaqeyn jiray tiri lacagtaas ayuu taa ku maareyn jiray tiri oo ayuutadaas waa aruurinayay tiri adiga hadda waxay tiri waxa laga joogayay tiri muddo 5 sano laga joogayay tiri waqtiga wadanka sharciga qaatay ilaa hadda 5 sano laga joogayay tiri 5 sano waxay tiri hooyaday wax yani aad iyo aad yani loo taaban karo waa u qabtay tiri waa dadaalay tiri ma sha Allah waxyaabii ay markaas ay tamaninaysa ama muxuu ahaa ay ku fikiraysa ay rabtay markaas ay dhigi jirtay oo jeedin dadka ficiina oo darata bixeen
waalidkoodii waxbay u qabteen guriyay u sameeyeen wax ka mid waa qabtay tiri oo markaas oo la sameyn karo walaalay qaar ka mid ay tiri shaqa oo abuuray tiri alxamdulilah ay tiri yani wax naga dhiman ama wax markaas aan leeyahay waa ka dhiman yihiin oo way u baahan yihiin aan isdhahayo ma lahanay tiri ninkeygan waxay tiri lacagiisii wixiis waa aruursaday tiri leen oo wuxuu gaday tiri oo talyaaniga ah maadaama inta aniga oo ugu diiwaan gashan yahay tiri inaa aniga xaaskiisa ahay lagamana ogolaanayo tiri in xaas kaleenta oo keensanaayo ma laga ogolaanayo taasna wuxuu u sameeyey ahayd si uu sharci u qaataa doo muxuu ahaay anigii guursan lahayn sharci ma heli lahayn oo mar walba waa la celcelin lahaa naagtiisiina sida uu ku keeni lahay darteeda yani wuxuu sameeyey in dad nin talyaani joogo oo xaaskiisa iyo markaas caruurtiisa asagana keensanaayo ninkaas in markaas saawada ognay talyaaniga dhiigaga wuxuu dhahay waa anaga anaa umaroo dhahay waa baxay wixii oo dhan adi waa lasoo habeeyey oo dhahay waxaa u dhinneeday tiri keliya bixitaankii aa u dhinnaa adi waa loo soo wada habeeyey waxyaabay lacag nooga bixi karo waa ogtihiin meelahan oo dadka waxyaabaha soo dhameynayo lacaga xitaa laaluush ah markii oo dadka si toosay isku dhalin waxyaabo badan oo dadka lagu afqabanaya jirto wixii oo dhan waa lasoo dhameeyey tiri ninkii okay u noqday asagana afaarihiisa ilmihiisa iyo xaaskiisana inuu keensan karo oo waddanka talyaaniga marka oo keeno kadibna oo waddan kaleenta u gudbiyo si markaas uu uga dhiibo ilaan ma noqonaysay tiri aniga waddanka aa jooga ayadana in la keeno waxay tiri yani wax naga dhinaca yani naga maqan ama naga dhiman oo markaas oo nolol ah ma jirnay tiri nolosheena maasha allah ay tiri hooyaday wixii ay jeceshay waa u sameeyey tiri sharciga waa qaatay tiri markaas waxaa dhacday tiri arrintan lama filaanka ah oo aan ku fikiri jirnay tiri weligeyga oo mar walbana ay isdhahaya tiri hooyadaas ugu sheegi doontaa arrintan maadaama 5 sano ay kasoo wareegatay tiri arrinta ilmihiina hadda ay yihiin tiri ilmaha 4 jiro waayay tiri labada ciyaal tiri 4 sano jiraanay tiri laakiinse 4 sano waxay tiri aniga wax aan qarinayay tiri wax la taabanayna waa sameeyay tiri hooyaday riyooyinka ay ku riyoonaysayna waa u wada rumeeyay tiri ilaa iyo wax yar leh ma oga intaasna wali waa ku tala jiraayay tiri wax walbana waa u sameeyay ninkeyga asagana sidoo kaleento riyooyinkiisa wixii markaas uu rabay asagana wax yar ma ogi inta kaleento way u wada rumoobeen maalin maalmaha ka mid hooyaday ay soo wacday ayadoo dhehaysa maadaama hadda inta aad joogtid ay tiri wiil oo muxuu ahay cidda ah ay tiri oo family yani family ah oo Yurub Yurub aan dhehnay Canada joogay wiilkii waxay tiri wuu ku soo doontay wuxuuna rabaa wiilkii inuu ku guursado arrinta meesha ay ka halaabaysaa taas markaasa waxay tiri waxa aa ku jawaabay iyo waxa aan dhaha aa ka suwaayay tiri hooyaday yani waxba ma dhihinay tiri mana u farin mana u xirin waxay tiri waa kasoo fikiri doonaya dhahda hooyo kadib markaa hooyaday kasoo tagay tiri ninkeyga usoo bandhigay tiri arrintii waxaan dhahay tiri ani adiga shalayta dan iyo daruuf aa isku galnay tiri maantan xaaladeeni waxay noqotay xaalad run oo ilmaa joogayay tiri wax la qarqarin karana ma lahay tiri aniga intaanaan isla wada nooleen ninii naagna waa isku nahay tiri oo dad xalaal isku ah oo ilmo isku haystaanahay inkastoo aan faamilada aa ka qarin adigana xaaskaaga iyo familkaaga aa ka qarisay waxaan jeclaan lahaayay tiri in aa baxdid oo aa u tagtiday tiri yani ka dalbatid tagitaanka waxaa ka wadaa yani dadkaaga iyo ehelkaaga aa u dirtid oo markii aa sheegtid inaad dhahdid yani gabadhaan anaa qabaa anaa intaas qabay oo xumeen iyo sameyn iyo wixii naag loo maraayay aa u martid oo hooyadeena aa iga maslaxdid maadaama adiga aad tahay ninka guriga aabaha ka ahaa arrintaana ee dhacday markasaa ku xalin lahayd inaa gashidaan rabaayay tiri aniga hadda nin kale ilaa nin ay qabaayay tiri see nin kale leegugu daraayay tiri haddana hooyadee ma ka hor keeni karay tiri aniga nin ay qabaa oo ma dhihi karay tiri adiga inaa baxdid oo erga muxuu ahaaye aa samaysta adeere iyo faamil wixii markaas ku ah aa isku habeysatid sidii aa hooyadee ugu tagtiin oo aa raaligelisiin see wax u dhaceen aa u sheegtiin intii usoo bandhigtay ninkan isagana wuxuu rabay ahayd xilligaas la joogo inay naagtiisa ay soo baxdo ninkii muxuu ugu jawaabo waay gabadhii markaasa wuxuu yiri aniga midaas ma samayn karo yiri ma rabiyo yiri naagteedii inay ogaato arrinta ani adiga guurkeygana waa ogeyd ani adiga waxaa isku guursanay iyo dantaa isku guursanay marka ma samayn karo yiri ani ciyaalkayga u baahanahay iyo faamilkayga inaa keeno mana rabo yiri ilmahayga inay iga dayacmaan marka walaalay qaaliga waa dareemi kartaa gabartii yani waxa arrin oo waxay dhexda ka soo gashay oo meel looga baxa lahayn oo wax ay ka samaysana aysan lahayn aad iyo aadna yani dhinacyo badan isaga soo xirxirtay bal maxay samayn doontaa waaye maadaama oo ninkiina dhahay aniga reerkaaga ma u tagay mana kaa doonanayay hooyadiina ay tiri
jawaaba kaa sugaa wiilka oo walaalka oo adeerka aa lagugu daraa oo Canada degan bal maxay sameyn doontaa ay kula tahay insha Allah qaybta saddexaad la socda insha Allah inta video mid la mid ah ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aad ka hesheen like subscribe share insha Allah like tano saar si videoga meel dheer u gaaro dad badan oo arka insha Allah